gudoomiye soo dhawow meeshan waxa ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga Soomaaliyeed oo macalisi loo yaqaano isgarabsanayo iyo kuwa danab deegaan nabad ku soo dhawow waxay ciidamadii hawsha ayaanta ku jiray oo sidaas ugu dadaalayay oo haddana daafaha ka taagay ku soo dhawow deegaan nabad ku soo dhawow amni waay adigana waa kaaga mahadcelinayna safarka dheer oo soo martay iyo howlaha aad bariyan ku jirtay oo adiguba naftaada aad xiriirada tuutada oo nooga harin oo furunta qodaada uga jirtay halkan waxa jooga waa military iyo ciidankii macalisiida iyo kuwii ahaa danab soo dhaw gudoomiye gacan furo ku soo dhaw deegaankan quruxda badan oo maanta maartaan soo booqanay Alkowsar iyo meelo kale oo soo marnay sidii Elmuluq iyo Boosreeri iyo Booscadur maanta waxaan maartay hawshaas wadooyinkan aadan yabaalan ku sugnayn marka maanta inaan soo ogaano deegaanada aadan yabaal ku xeeran ama sida ay kala yihiin iyo deegaanada noloshooda inaan soo ogaano runaantii meesha maanta aan taaganahay oo Alkowsar waa aad iyo aad meel maartay noo cajib gelisay quruxda iyo bulshadeeda sida ay maartay nishaadkooda iyo deegaan ahaan xataa deegaanku sida uu yahay deegaan weyn oo baaxad leh oo maanta aad iyo aad weyn alxamdulillah waxay ilaahay mahadiisay inuu ilaahay nimankii dhibaatada ummadan ku hayay oo ummadan u geeso ragaadiyay waxaan aaminsanahay hadda deegaanka sidaan u yaalno hadii sidii loogu talagalay ganacsiga Muqdisho isugu furaaleed inta 14 sano la joogo waa aaminsanahay inta hadda maanta deegaanka uu ka badan inuu ahaalahay oo magaalo intaan ka camiran oo ka sii weyn ay ahaalahay laakiin maanta ilaahay baa maartay waqtigaas inay nimanka ummadda dhibaan ayaa iska qoreed waana dhamaado waqtigooda ilaahay ayaan uga shukriyeynaa iyo dhammaan dawladda Soomaaliya madaxweynaha qaranka ugu horeeyay kan state-ka iyo dhammaan wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidamada dhamaantood iyo deegaanada oo isabaabule dadka jooga maamulada gobolada labadan gobol Hirshabeelle la isku yiraahdo Shabeellaha Dhacay Hiiraan oo si weyn isu abaabulay una ogaaday inay nimankan yihiin niman dhibaato ummadda ku ah wadarkiisa meesha ay ku noolaa jireen waxa ay ku sameeyeen iyo wax ka muuqday meelaha dadka wax lagu dhibaatay jiray meeshaas ay ka rari jireen marka ilaahay baa mahad iska leh wixii ay dhibaatadii ay shalay ummadda ku hay jireen maanta ayay ku hirtay ayaga socalla ayaga maarta habeenkooyala dhibaatadii ummadda u maleegi jireen mid la mid ah ilaahay bedelkooda siiyay waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed dhibaato intay ku soo sameeyeen ay ugu ekaato dibna ay maartay magacooda loo waayay ilaahay idinkiisa nimankaana maartay waa qawaariij oo culimada Soomaaliyeed ayaa ka fadwootay qawaariijna waa dhibkeeda hore ayaa loo sheegay marka waarna siday u kaceen dadka deegaanadan ay u istaageen ay naftooda iyo maalkooda diyaar u noqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan dawladda Soomaaliya haday tahay federaalka oo madaxweynaha qaranka uu sareeyo iyo state-kaba dib looga laabama doono ayaguna sida ay u soo baxeen cadawga inay isaga suuliyaan u go'aansadeen inay isaga suuliyaan ayaga ayaa yaqaano kuwa meelaha ku dhuumaayo annaga ma naqaano ayaga ayaa nooga xog badan inay xogtana siiyaan nin kastoo maalin ayaga la shaqeeyay nimankaasna waxaaba yaraatay walaalnimo oo leeyahay male walaashina ma laho marka aad iyo aad ilaahay baa mahad iska leh deegaanadii gobolka Shabeellaha Dhexe muddada dheer naga maqnay inaan maalmahan dhex joogno muddooyinkan aan ku dhex sugnayn haddana waxaan gaaraynaa insha Allah oo inta noo dhiman inaan mar dhow haduu ilaahay yiraahdo aan gacanta lagu dhigo dawladda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigaan